Muuqaalkan waxaynu kaga hadli doonaa qaabka loo soo saaro dhinacyada saddex xagalka. Tusaale, waxaa layna siiyey saddex xagalkan. Xagashan waxa weeyaan 30 degree kaba soo qaad, dhinacana waa 7 sentimitir. Marka sidee baynu kusoo helnaa dhinacan iyo dhinacan? Dhinacan sida caadiga waxaa loo yaqaanaa adjacent, waa dhinacan. Dhinacan adjacent baa loo yaqaanaa, dhinacana opposite. Marka sidee baynu kusoo helnaa labadan dhinac ee naga maqan? Waayo si aynu usoo saarno labadan dhinac waxaa qasab inaynu garanayno qaacidooyinkan. Sin theta waxay kula mid tahay opposite over hypotenuse. Cos theta iyadana waxay kula mid tahay adjacent over hypotenuse. Halka tan theta iyaduna ay kula mid tahay opposite over hypotenuse. Haddaba inagoo saddexdaa qaacido xusuusnaanayna ayaa waxaynu soo saarnaa dhinacyada inaga maqan ee x iyo y. Okay, aynu ku horeyno haddaba dhinacan aynu ku horeyno oo opposite-ka loo yaqaano. Waxaynu isticmaalaynaa markaynu dhinaca rabno inaynu soo saarno sin theta. Waxaynu odhanaynaa marka sin theta waxay kula mid tahay opposite over hypotenuse. Si aynu marka dhinacan u helo oo ah dhinaca inaga maqan, waxaynu u baahanahay inaynu halkan u qaybino hal, ama sinka inaynu u qaybino hal, kadibna aynu iskugu dhufano nidaam isku tallaaba. Dabeedna waxay noqonaysaa opposite-ka wuxuu kula mid yahay waa hal. Markaad ku dhufato opposite-ka, opposite ayay noqonaysaa. Yani intaas run bay noqonaysaa. Waxay kula mid tahay labadan dhinacna waynu isku dhufanaynaa. Waa dhinacan. Waxa weeyaan dhinacan iyo dhinacan waynu isku dhufanaynaa. Dhinacan iyo dhinacanna waynu isku dhufanaynaa. Waayahay labadan dhinac markaynu isku dhufano waa intan. Sinka iyo hypotenuse-ka haddaynu isku dhufano waxay noqonaysaa sin theta times hypotenuse. Waayo dhinaca hypotenuse-ka waxaynu haysanaa inuu yahay 7 sentimitir. Opposite-kuna waa dhinaca laynaga doonayo. Marka x baynu qaadanaynaa. X waxay kula mid tahay sin, halka thetada waxaynu ku bedelaynaa xagasha layna siiyey oo 30 degree. 30 degree times hypotenuse-kuna waxaynu ku bedelaynaa qiimaha layna siiyey oo 7 sentimitir ah. Okay, intaa markaynu isku dhufano marka waxay noo soo baxaysaa waxay noqonaysaa markaa 3.5 dhinaca inaga maqan marka oo opposite-ka ah. Wuxuu noqonayaa ama qiimaha x waxay noola mid noqonayaa 3.5. waayo dhinaca xiga aynu u kala hadaba. Dhinacan marka maxaynu ku heli karnaa? Saddexdii qiimo aynu soo sheegnay, saddexdii qaacido aynu soo sheegnay. Dhinacan maxaynu ku heli karnaa way kula tahay? Waxaynu ku helinaa cos theta waxay kula mid tahay adjacent over hypotenuse. Sida caadiga ah dhinacyadan saddex xagalka
mid kastaa wuxuu leeyahay magac gooniya. Tusaalahaan dhinaca waxaa la yidhahdaa adjacent, dhinacana waxaa la yidhahdaa hypotenuse, waa dhinaca ugu dheer, dhinacana waxaa la yidhahdaa opposite. haddaba dhinacan adjacentka waxaynu ku helaynaa qaacidadan, waxaynu kusoo saari karaynaa midan waayahay. haddaba sidii aynu tii hore isweydaarsi ugu dhufanay aynu tan isweydaarsi ugu dhufanaynaa. dabeedna adjacentka wuxuu la mid noqonayaa, waa markaad kan iyo kan isku dhufato wuxuu kula mid noqonayaa adjacent keliya. tan iyo tan markaa isku dhufatana waxay noqonaysaa cos theta times hypotenuse. okay, cos theta waxaynu ku bedelaynaa qiimaheeda, markaa cos 30 degree waxaynu ku dhufanaynaa dhinaca layna siiyey oo ah 7 centimeter. intaa markaynu isku dhufana waxay noo soo baxaysaa 6.6. okay, dhinacana marka waxa weeyaan waa 6 something. dhinacana wuxuu noqonayaa 6.06. okay, haddaba qiimayaashan aynu soo saarnay inay sax yihiin iyo inay khalad yihiin maxaynu ku ogaan karnaa? saynu ogaana inay qiimayaashani sax yihiin iyo inaanay ahayn, waynanu ku bedelaa qaacidooyinkan. tusaale ahaan sin theta waxay noola mid ahayd opposite over hypotenuse. dabeedna dhinacyada aynu soo saarnay maadaamanu hadda dhinac kasta hayno aynu oppositeka 3.5 hayno, dhinaca hypotenusena already aynu haysanay, waynanu ku bedelaa kadibna wayna noo soo baxdaa xagasha gudaha ku jirta. okay, marka waxay noqonaysaa sin theta waxay noola mid tahay 3.5 loo qaybiyey 7. waayahay sin theta waxay noola mid tahay dhinaca waxaan ku dhufan karnaa 10, dhinacan hoosena waxaynu ku dhufan karnaa 10. dabeedna waxay noqonaysaa 35 loo qaybiyey 70. intaa markaynu isku qaybinana waxay noo soo baxaysaa 1/2. sidaas daraadeed halkaa markaynu taaganahay waxaynu odhanaynaa inversiga waxaynu inversi gelinaynaa 1/2gaas. sin inverse of 1/2 baad odhanaysaa. haddaba sin inverse of 1/2 theta ayaa inoola mid noqonaysa intaas. 1/2 ayaa waxay noola mid tahay sida caadigaa sin inverse of 1/2 waa 30 degree. sidaas daraadeed qiimayaashani waa sax.